daawadayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub kaasoo aan wax badan uga ogaan doono waxa loogu yeero xigmad. waxaan maqalnaa ereyga xigmad, laakiin waxaa suuragal ah haddii layna weydiiyo micnaheeda in aynu ka bixino jawaabo kala nooc ah, balse waxayna ku kala fakar duwanayn in xigmadu tahay wax wanaagsan ama shay qaaliya oo ruuxu kastaaba u baahan yahay inuu helo amaba u yeesho. haddaba waxaan mawduucan kaga bogan doonaa waxyaabo xigmadda la xiriira oo inta badan weydiimahoodu maskaxdeena kusoo laalaabto, taasoo laga yaabo in aad ku ogaato macluumaad iyo qeexitaano la xiriira waxa ay tahay xigmaddu. نحن بالإسلام كنا خير معشر وحكمنا باسمه كسرى وقيصر وزرعنا العدل في الدنيا فأثمر ونشرنا في الورى الله أكبر فاسألوا إن كنتم لا تعلمون مسلمون مسلمون مسلمون. xigmaddu waa haybad iyo nasiib alla bixiyo. sidoo kale qofka ayaa haddii aqoonta iyo cilmigiisu aada u sarreeyo waxa ay geysiisaa khibrad, taasina waxay sii dhaxal siisaa inuu noqdo mid xigmad leh. waana garasho ay si fudud u hesho maskaxdu, waa fikir fogaan arag iyo fiiro ku qotoma, waa akhlaaq iyo haybad diimeed, waa tiirka cilmiga iyo waayo aragnimada, waa waxa ficil dhammaystira ee dhaqaajiya. si kooban haddaan u sheegno waxa aynu leenahay xigmaddu waa faham qoto dheer oo haybad u dhalasho ahi ka dambayso. waxaan marnaba khilaaf ka taagnayn in quruunta kiisa ugu khayrka badan uu ahaa qarnigii uu noolaa nabigeenna calayhi salaatu wasalaam, aadanuhuna uu sidaasi lamid a yahay, taasoo micnaheedu noqonayo in jiilba jiilka uu uga dhow yahay qarni ahaan uu ka khayr badan yahay daraf walba oo noloshooda ah. waana halka ay soomaalidu kaga mahmahdo dad waa kii hore, hadalna waa intuu yidhi. haddaba sida ay rajadu u tahay wax nafta mar walba lagu sasabo, ayaa xigmaduna u tahay shay aadamuhu helideeda oo in badan ku taamo ama jeclaysto. sidaas si lamida waatuu aadan carab lahaa, inkastoo midhaha laga simiya madasha luuqdeeda, murti baan ka reebaa hadhiyo anigu maahmaahe, miisaan haddaan hadal lahayn waa micno la-aane, maskax baan lahaynine horaa laymidiidimay, mamaroorsiba gabaygu waa ii mihiib galaya bir. maa layga maashaqo haddii aan layga maarmayn, mulki baan u yeeshay maxaa lay martiyi waaye, maskab kuma qabee jeel miyaan laygu magacaabin, waa maxay dadka u muhanaya meheradaan haystay buu yiri. amba kama mahoobiyin tokay maasadaa badane, masar iyo khartuum nooma tegin mana masaafoone, kamana mudanin sheekhay marshow macrifo ay dheer, waa mihindisaya iima dhigin macallin yeershaay, waa shay maqaadiir ku yimid oon yar maamulaye, showduul masay lagu dhintee badadka laysiiyey buu yiri. inkastoo abwaanku xeeldheerida murtida ku duugan maankiisa uu noo tilmaamay, sheegayna in uusan masaafo dheer cilmi uu sheekh ka raacday iyo macallin isku midna u dhigin, ayaa haddana dulucda ujeedkeenu waxa uu yahay in shayga hibada ilaahay bixiyo ku timaada aynan marnaba kaa rabin waqti iyo dadaal fara badan, laakiin keliya ay kaa rabto in aad si wanaagsan u maarayso. tallaabada koobaad, sida la og yahay, xigmadda iyo garashada qofka waxay la jaan qaadaan bilowga noloshiisa adduunyo, taasoo micnaheedu yahay in qofka ay saameyn ku leedahay wacyiga uu ku indhadilaacsado. haddii qofku xaaladda sabinimada kula kulmo dad iyo duni aan nidaam, aqoon iyo akhlaaq lahayn, waxaa habowda miisaankii fahamkiisa ee saxda ahaa. balse haddii uu la kulmo barbaarin fiican iyo wacyi la baraarugsan yahay oo aqooni dhex taallo, waxa uu noqdaa qofkaasi qof xigmad leh. tallaabada labaad, marka uu qofku yeesho cilmi iyo aqoon fara badan, waxaa ku dhalata in uu sameeyo baaritaano aqooneed, taasoo uu kala dhex baxo fahamka waxyaabo ka daddan oo ku duugan dunida iyo waxyaabaha dul saaran. sidoo kalena uu barto taariikhdii lasoo maray
qiyaasna uu ku samayn karo waxa dhici kara mustaqbal aan markaa la gaarin. taasina waxay qofka bartaa in uu si kooban hadal ama ficil ugu taabto wax qeexid iyo waqti fara badan u baahna. haddaba waxaa islaamka soo maray dad fara badan oo xigmado dhaxalgal ah reeba. xigmadahaas oo ah mid ay ku kasbadeen qur-aanka kariimka ah akhrintiisa iyo ku dhaqankiisa iyo raaciddii dhabta ahayd ee ay rasuulka nabadgelyo iyo naxariis korkiisa ha ahaatee raaceen. bal aan isla fiirino imaamyadii iyo culimadii islaamka soo maray qaar ka mid ah. imaam shaafici raximahullah ayaa laga hayaa inuu yidhi qofka jecel in alle qalbiga u furo xigmadna ku arsaaqo cidlada ha badsado cuntadana ha yaraysto laba qolan ayuu raacin dadka maankoodu hooseeyo iyo culimada kuwa aan anshaxa iyo cadaaladda lahayn. sidoo kale imaam axmed binu xambal waxaa laga hayaa inuu yidhi haddii aad doonayso in alle uu si joogto ah kuu siiyo waxyaabaha aad jeceshahay adiguna waxaad joogtaysaa samaynta acmaasha uu alle jecel yahay. sidoo kale axadulculamaa ibraahim ibnu adham oo noolaa qarnigii 3aad ee hijiriyada ahaana macallimkii caalimka kale sufyaan athawri waxaa hadda ka hor dhacday inuu booqday magaalada dimishq kadibna dadkii ay weydiiyeen shiikhow waa isaga ilaahay ku yidhi suuratul ghaafir ibarya waana idinka aqbalayaa. haddaba haddii xaalku sidaa yahay maxaa ducadeenna loo aqbali la'yahay? caalimku waxa uu ugu jawaabay qalbigiinna ayaa waxaa ku dhintay 10 shay waana tan keentay in ducadiina la aqbali waa. 1 ilaahay inuu jiro waad qirteen haddana maydana deecin. 2 waxaad dhahdeen rasuulka waan jecelnahay haddana sunnihiisa waad ka tagteen. 3 qur-aanka waad akhridaan haddana kuma camal fashaan. 4 intaas waxaad cunaysaan risiqa alle haddana kuma xamdidaan. 5 shaydaanku waa cadowgiina ama waad ogtihiin inuu cadowgiina yahay haddana maydaan khilaafin. 6 waxaad dhahdeen jannada waan rabnaa haddana maydaan camal fala. 7 waxaad dhahdeen naarta waan ka baqnaa haddana dunuubta ka maydaan fogaan. 8 intaas waxaad aasaysaan mayd haddana darsi kuma qaadataan. 9 waxaad tidhaahdeen geeridu waa xaq haddana isuma aydaan diyaarin. 10 waxaad ku mashquusheen ceebaha dadka haddana ceebihiinna ma fiirisaan. runtii waa oraahyo kooban haddana xigmadi ka buuxdo. haddaba haddii aad rabto inaad noqoto qof xigmad leh waxaad u baahan tahay ugu horeyn in aad dar yeesho maskaxdaada. taas micnaheedu waa inaad maskaxda ku celceliso waxyaabaha wanaagsan ugana turto waxyaabaha naafaynaya maskaxdaada sida macsida alle iyo dibindaabiyeynta aadamaha iyo wixii la mid ah adiga oo adeegsanaya in aad barato cilmiga diiniga ah iyo kan maadiga ah intaba inaad dhuuxda dhaxalna kala harto dadka fogaan aragga ah ee aqoonta iyo waayo aragnimada aad bidayso shakhsi ahaantaadana aad isku daydo in aad dhisto oo yeelato hal abuur iyo hindise miro bisil bixiya. intaa kadib xigmadda waxaad ku ogaan kartaa ra'yi celinta bulshada iyo marka aad aragto dheef iyo dhawaaqyo lagaa faa'iiday oo magacaaga ama muuqaaga lagu soo xasuusto. balse ka taxadar xubnaha kooban ee qaabilsan niyad jebintaada kuwaas oo kala dhantaal ku samayn kara qof quman. ugu dambayntii walaalka iyo walaasha i daawanayow waxaan idiin rajaynayaa in hadallada kaa soo fulaya ay noqdaan kuwa xigmadaysan. taasina suuragal noqon mayso ilaa laga helo tilmaamaha aan soo sheegnay. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. waxaan kuu rajaynayaa in allah subxaanahu wa tacaala xigmad kuga arsaaqo. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh.